haddaba bilowga filim waxaan aragnaa in mustaqbalka dhow si loo xakameeyo dadka sii kordhaya ee qaramada midoobay ay ku amartay dhammaan wadamada in ay tirada dadka dhimaan 5% sanad kasta. sidaas daraadeed Mareykanku wuxuu hindisay hab uu ku dhimayo dadkiisa sanad kasta. waxay imtixaanka ka qaadaa dhammaan ardayda oo loo yaqaano imtixaanka khafiifinta. imtixaanka waxa ka muuqda su'aalo aad u adag xagga xisaabta iyo sayniska. arday kasta oo ku dhacay imtixaanka waa la dilayaa. markay tan samayso America waxay si fudud u maamushaa dadkeeda sanad walba. kadib muuqaalka wuxuu u wareegayaa magaalo loo magacaabo Austin, halkaas oo baaritaanka imtixaanka khafiifinta loo qorsheeyay inuu dhaco 18 saacadood gudahood. waxaan arkaynaa Simon iyo walaashiisa weyn Lena. Simon waxaa loo maleynayaa in markaan uu imtixaanka u galo, markaa walaashiis Lena ayaa ka caawinaysa inuu isu diyaariyo. sidaas daraadeed Simon wuxuu ka codsaday walaashiis Lena inay u geliso muraayadaha indhaha si uu u khiyaamo xilliga imtixaanka. muraayadaha indhuhu waxaa ku barogaraamsan dhammaan jawaabaha imtixaanka. Lena waxay xasuusisaa walaalkeed inuu jibiyo muraayadaha kadib markuu imtixaanka dhamaado. Lena waxay wicitaan ka heshaa Dr. Bosch oo u sheegaya in hooyadeed isu dayayso inay ka baxsato isbitaalka. markay maqasho hadalka, Lena waxay u soo dhaqaaqday dhanka isbitaalka iyada oo horay u soo kaxaysatay walaalaheed ka yaryar. markay timid isbitaalka, Lena waxay isku daydaa in hooyadeed ku qanciso inay joogto isbitaalka, laakiin waxay u sheegtaa hooyadeed inay saxiixda waraaqadaha bixitaanka mar hore. kadib Lena waxay ka codsataa dhakhtarka inaanu ka saarin isbitaalka hooyadeed, balse dhakhtarku wuu ka diidaa wuxuuna u sheegaa in xaaladda hooyadeed ay kasii darayso ayna u wanaagsan tahay in guriga lagu daryeelo. kadib waxaan aragnaa wiilka gudoomiyaha Blake. kaliya 12 saacadood baa ka haray baaritaanka imtixaanka, balse kama muuqato wax xabsi ah maadaama dhowr jeer oo hore uu ku soo baasay imtixaanka. Blake wuxuu ka soo baxay qolkiisa kadib ilaaliyihiisa wuxuu weydiiyay halka uu u socdo. Blake wuxuu u sheegay inuu jikada aadayo si uu cunto ugu soo cuno. Blake wuxuu si dhuumasho ugu soo baxay dibadda wuxuuna fuulay gaarigiisa iyadoo ay ku sugayso saaxiibtiis Ellie. Ellie iyo Blake waxay ka wada hadlaan imtixaanka haddii ay ku guuldareystaan waa la dili doonaa. sidaas daraadeed waa inay ku raaxaystaan waqtiga ugu haray imtixaanka. iyagoo marxalad degan ku jira waxa u yimaada waardiye lagu magacaabo Vince oo Blake u kaxeeya aabihiis gudoomiye Dean. Dean wuxuu wiilkiisa Blake u sheegay in imtixaanka beri gali doono uuna diirad saaro sidii uu ugu gudbi lahaa, kadibna si xor ah noloshiisa ugu raaxaysan doono. wuxuuna uga digaa wiilkiisa Blake inuu ku mashquulo saaxiibtiis Ellie inta imtixaanka ka harsan. ugu dambeyntii subaxdii waxaa la soo gaaray waqtigii imtixaanka. waxaan aragnaa in ilaalada aad u adag tahay ayna adag tahay in laga baxsado. Simon wuxuu yimid iskuulka, balse waxay si lama filaan isugu dhacaan arday kale, taasoo keentay inay ka dhacaan muraayadaha indhaha. wuxuu isku dayaa inuu raadiyo, balse waxaa arkay waardiye oo ku amray inuu gudaha galo. Simon wuxuu gudaha galaa muraayad la'aan, iyadoo baarayaashu si adag u baariyaan ardayda. kadib waxaa meesha imtixaanka ku aragnaa Lena oo u joogta inay imtixaanka gasho. Blake wuxuu u yimaadaa Lena si ay u siiso muraayadaha indhaha, balse waxay u sheegtaa in midda kale ay siisay walaalkeed Simon. kadib ilaaliyuhu wuxuu qash ku arkaa gacanta arday. wuxuu isku dayaa inuu baxsado ardayga, balse nasiib daro waxaa lagu qabtay shabaag. halka Lena saaxiibkeed Kalen uu ka duubayo muuqaal isagoo u diray wariye lagu magacaabo Fadi. Blake wuxuu la kulmaa saaxiibtiis Ali oo argagaxsan, wuxuuna isku dayaa inuu dejiyo. ugu dambeyn imtixaankii waa bilowday. dhammaan albaabada waa la xiray. macallimad lagu magacaabo Mrs. Jundara ayaa u sharaxda sharciyada imtixaanka, wayna dhiirigelisaa ardayda. kadib markii imtixaanka galeen, ardaydu waxay sugayaan natiijada. arday kasta wuxuu wajigiisa ka muuqdaa walaac iyo nasasho la'aan, halka qaar ka mid ah ay ooyin jabsadeen cabsi awgeed. ugu dambeyn waxaa soo baxay natiijada. dhammaan ardaydii dhacday waxaa laga saaray qolka. Blake wuxuu ogaaday in saaxiibtiis Ali ay ku dhacday imtixaanka. Lena waxay sidoo kale ogaatay in walaalkeed Simon uu ku dhacay imtixaanka. kadib Blake wuxuu wacay aabihiis wuxuuna ka codsaday inuu badbaadiyo saaxiibtiis Ellie, balse aabihiis Dean wuu ka diidaa wuxuuna u sheegaa inuu ilaalinayo sharciga aanu jabin karin. kadib Blake isagoo xanaaqsan wuxuu weeraraa waardiyaha isagoo ku booriya saaxiibtiis Ellie inay baxsato, laakiin waardiyaashu way qabteen. kadib filimku wuxuu isku jarayaa hal sano kadib. 24 saacadood ayaa ka haray imtixaanka. Lena walaashid ka yar Corin ayaa galaysa sanadkan. Lena iyadana waxay galaysaa imtixaankii ugu dambeeyay. haddii ay dhaafto weligeed waxay ahaanaysaa xor. dhanka kale Blake wuxuu ku jiraa jimicsi, wuxuuna u muuqdaa mid u xiisay saaxiibtiis Ellie. kadib Blake wuxuu duubaa muuqaal
aan gadaal ka ogaan doono. Iyadoo ay soo dhawaatay waqtigii imtixaanka, Liina waxay markeedii ugu dambeysay macasalaamaysaa walaashid Corin. Dhanka kale, gudoomiye Dean wuxuu soo booqdaa wiilkiisa si uu u dhiirigeliyo imtixaanka. Laakiin Blake hadalkiisa muhiimad ma siiyo. Wuxuu uga soo baxay dibadda. Kadib Blake wuxuu baakad xiran ku ridaa sanduuqa boostada. Waxaa ka qaada waardiye Fiennes wuxuuna u geeyaa aabihii Dean. Baakadka xiran wuxuu ka helaa fiidiyoogii uu hore iskaga soo duubayay Blake, wuxuuna u sheegaa aabihii Dean in uu si ula kaca imtixaanka isku ridi doono si aabihii u dareemo xanuunka ay leedahay marka ilmahaaga aad weydo sida waalidiin fara badan ku dhacday. Isagoo arrinkaa kanaya jabsan, Dean wuxuu ku amaraa ilaaladiisa inay soo celiyaan Blake, laakiin kaliya imtixaanka waxaa ka haray 15 daqiiqo. Nasiib xumo, waardiyaashu waxay xireen albaabada taasoo aan suuragal ahayn. Ugu dambeyntii imtixaankii wuu bilowday. Blake wuxuu si bari dhex u calaamadiyaa jawaabo khaldan. Fasalka carruurta da'da yar, Mrs. Core waxay u daartaa carruurta muuqaal u muuqanaya una sharaxaya sida laga maarmaan u tahay imtixaanka si tirada dadka loo dhimo. Waxay daha ka qaaday in wadamada qaar ay iska joojiyaan dhalmada, halka qaarna ay dilaan dadka da'da ah, laakiin Mareykanku kaliya wuxuu ilaaliyaa carruurta caqliga badan. Intaas kadib waxa uu bilowday imtixaankii. Ugu dambeyn waxaa soo baxay ardayda ku dhacay imtixaanka oo ay ku jiraan Nathan, Sarah iyo Liina. Blake wuxuu la yaabay inaan la kaxayn isaga, isagoo si ula kaca isu riday imtixaanka. Wuxuu wacay Dean isagoo u sheegay in natiijada wiilkiisa Blake ku bedelay natiijadan Liina. Dhanka kale Mason, Liina waxay qaadan weyday inay ku dhacday imtixaanka. Mrs. Jundara ayaa joojisay waardiyaha iyadoo u sheegtay in Liina ay tahay ardayda ugu wanaagsan ayna suuragal ahayn inay ku dhacday imtixaanka. Kadib Jundara waxay si qarsoodi ah u siisaa kaarka, iyadoo si qarsoodi ahna ugu sheegtay Liina inay baxsato marka ay fursad hesho. Halka ardaydii dhacay la geeyay hoolka hoose. Kadib Liina waxay afkeeda ku qarisaa kaarkii furaha. Blake wuxuu iska dhigaa qof dhaawacan si waardiyaha labiskiisa u qaato, wuxuuna isku dayaa inuu furo kombiyuutarka, balse waxaa go'da korontada hoolka. Mason wuxuu arkay waardiyaha oo miyir daboolan, wuxuuna u soo cararaa qolka kontaroolka. Dhanka kale, Liina waxay isticmaashaa kaarkii Jundara ay soo siisay si ay albaabka u furto. Blake wuxuu ku dhuunta hawada inta uusan imaan Mason. Wuxuu wacay farsamayaqaan Victor si uu u hagaajiyo nidaamka. Mason ilaalada ayaa dib u qabtay ardaydii dhacday, laakiin Mason wuxuu ogaaday in Liina maqan tahay. Blake iyo Liina waxay ku gurguurtaan hawo mareenka, waxayna ku dhacaan barkad, balse Blake ma yaqaano dabaal, waxaana badbaadisay Liina. Kadibna waxay iska bedelaan dharka, waxayna raacaan hawo mareenka, balse kaarka furaha ayaa ka dhaca Liina. Waxayna isku daydaa inay ku soo qabsato bir magnet ah, balse waxaa arka waardiyaha. Blake ayaa la dagaalama waardiyaha, wuxuuna ka qaatay dharkiisa. Dhanka kale, Mason wuxuu la kulmaa Jundara, wuxuuna weydiiyaa kaarkeeda furaha, balse Jundara waxay tustaa kaar kale oo ay waardiye ka soo xaday. Kalen wuxuu ka caawiyaa saaxiibtiisa Liina inay furto kombiyuutarka. Kadib Liina waxay hubisaa natiijada walaashid Corin, waxayna ogaataa inay dhibco sare ku baastay. Liina ayaa iyadana is hubisa, waxayna ogaataa inay dhibco aad u sare ku gudubtay. Dhanka TV-ga, gudoomiye Dean wuxuu Liina ku eedeynayaa inay dishay 2 waardiye kadib markii ku dhacday imtixaanka. Kalen wuxuu muuqaalo waardiyaasha oo garaacay arday u diray wariye Fadi oo baahiya muuqaalada, taas oo fashilisa gudoomiye Dean. Liina waxay natiijada u dirtaa Kalen. Dhanka kale, ilaaladu waxay ogaadeen Blake wayna garaacaan, halka Kalen natiijadii u soo dirtay Liina uu la wadaago warbaahinta. Ilaaliya Fiennes wuxuu u soo jeediyaa Dean inuu daayo Liina haddii uu rabo in xal uu yimaado. Dean wuxuu wacaa Mason wuxuuna ku amraa inuu sii daayo Liina. Kadib ardaydii dhacday waxaa lagu mudaa irbado. Ardaydii gudubtay waxay la kulmaan waalidiintood. Liina oo ilmeynaysa waxay isku duubtaa walaashid Corin, halka waalidka carruurtooda soo noqon ay oynayaan. Muuqaalka ugu dambeeya, baabuur weyn baa lagu qaadaya ardaydii dhacday oo uu ku jiro Blake, waxaana lagu qaadaa wiish, waxaana la geenayaa dhulka hoostiisa warshad ku taal oo lagu soo saaro kiniiniyada. Dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya warshadda waa ardaydii horey ugu soo dhacday imtixaanka oo ay ku jirto Eli. Ugu dambeyn waxaan ogaanaynaa in dawladdu aanay dilin jirin ardayda dhacday bas ay u dirto shaqo. Halkaasna waxaa ku soo dhamaaday filimka. Fadlan muuqaalka like inoo saar, naguna soo biir.